daahira horta waa ku dhageysanayay kowdee waaya horta sheekadan daarood iyo hawiye horta halka aniga iga dhig anigu hawiye iyo daarood iyo isaaq intaan ku soo wacay midna kumaan oo horta waa ku soo wacayaa waaya anigoo ka turjumayay inaan adigana ila de waa tashan de qabiil lagu waashay anigana hawiyena ka wakiila tolkayna ka wakiila waaya ayaan horta ku soo wacay waaya adigu meelaad ka yani hadda ka keentay warkan iyo meelaad ka qaylisay ma fahmin moogtahay laakiin anigu siday saxda ahayd ee aad leedahay waxbay ka baydhay aldaaroodiye ismaaciiliye iyo meelaha la galay baan rabaa inaan hadda horta aan halkan kugu sheego anigaa ku soo wacay waxaan ku idhi daahirow waa bil rabadaan sow aniga 15 sano taariikh ku dhow friends walaalo maynaan ahayn so aniga intaa soo sano yani dadku eeg daahir baa soo dirsaday daahir baa ay naagtan daahir baa taas horta wixii friends hadii la yiraahdo de dadku yay de walaalo noqon oo friends noqon waa anada case moogtahay laakiin anigu social media intaasaan ku wada jirnay intaasaan naqaanay anigoo social media aan ku jirin ayayna horta friends ahayn oo isbaranay oo dad walaalo ahayn okay arrintan aniga horta qof markii horena habeenkii dhaweedna waa sheegay waxaan ku yiri arrintan horta qof ii dirsaday igu yiri inay arrintaa wax ma ka qaban kartaa ila daahir dad waliba way ogyihiin inaan friends nahay ma jirtaa waa may baan ku yiri laakiin anaa damiirkayga anigoo adiguna isoo dirsan oo igu oran arrintaas inantii nimco jookriyo aanay tolkayna isoo dirsan anaa horta arrintaa muslimiya ilaahinimo u galay oo isidhi waa bil rabadaan daahirow maanta anaa kugu dhegsan arrintaa waana bil rabadaan halkaana waad ku joojinaysaa meel cadna inantaas waa ku kala baxaysaan intaa ma ku yidhi mise kuma odhan adiga waxay dhamayso anaa ku jawaabay halmar okay intaasaan ku idhi kadib waa kula soo hadlay waxaad igu tiri waayahay waad ila soo hadashay waxaad igu tiri iglanay adaa iga mas-uulaa tiri wixii aad igu xukuntid xataa waxaad ii raacisay haddii aad xataa bilaa hadal aad ii xukuntidoo tiraahid iglanay waxaa daahirow samay xataa diyaar baanu ahay ilaa garweyna dad badan baa ina dhegaysanaya moogtahay macal waxaa taagneed haddaad igu tiraahid bilaa hadal halkaa ku mar oo anaa ku xukumay oo inantaa afkaaga iyo mar dambe yaan lagaa maqlin xataa diyaar baan ahay saasaad igu tiri marka waxaan ku yidhi haddaba waayahaye adiguna waxaad tiri waa maxay tahay arrintaasaa dhacday nimcuna wax ma reeban aniguna wax ma reeban ma garatay oo labadiinaba de waa la oga waxbay sumaydaan reeban soo may ahayn okay halkaa arrintii markay maraysay waxaan ku yidhi arrinta halkaa ku jooji waxaan arrintii kalaan tegayaa daahir waa mahadsan tahay waadna mahadsan tahay maadaama aad igu tirid maanta carruurta yar aad dhashay ilmahan dhashan ayaan kaa yeelin adaa iga mas-uula i xukun kaama yeelo ilmaha yare marka horta taana walaalo waa kaaga mahad celinayaa hawshii kalaan galay dad badanna waan diray waan raadiyey wax leeyahay hawshaas walaalo meeshana de meel ay kaa dhaaftay garan maaye waan sheego waxaan ku yidhi qoladii reer tolkay arrintaa wuu iga aqbali waayey wax leeyahay arrintaana uma socono heshiis may garto meel ay kaa dhaaftay anigu garan maayo waxaa tidhi waxa laygu yidhi arrintaa waan sheegay inaad adiguna ay aqbashay reerkii tolkayna ay yidhahdaan arrintaa uma socono walaalkay ilka casena uu intuu soo hadlay yidhi arrintaa dee wuxuu halkaa ka yidhi dee magarasa marka arrintaas faraha way ka baxday macnihi heshiiskii iyo waantii aan anigu waday waxaana loo turjuntay inaan anigu leeyahay daahir baan soo qabanayaa inantii nimcona waan soo qabanayaa meel baan soo fadhiisanayaa dabeetana nin iyo naag baa wada guranaya maanta dhan oo kanaadi tiri waxaanaadi tiri anigu taa marna kamana hadlin mana ka hadlin mana u socon laakiin horta saasaa bahashi la iigu duway ma garanaysaa halkaa markay maraysay sheekadii wejiyo badan bay yeelatay aniguna awalba wixii aan u socday wuxuu ahaa inaan un arrintaa nabadeed go'aa dhigo go'aasna dee la kala qaato ilaa go'a haddii maxay tahay xataa inan aanay intaysa soo horfaystaan la guraabaasine halkaa xabad joojinta lagu joojiyo dabeetana daahirow de haddii ay sheekadaasi nabadaasi ilaahayba hirgeliyo ay dhacdo dee inaan raggaa jooga lagu kala baxo meeshaas oo raggaas dee ilaa daarood haddii layahay daarood ismaaciil wuu wada joogaaye ama daarood ismaaciil cimaamadaas ha qaado ama ilka case ha qaado
ama Soomaali Maxamed ba qaaday inay sidaas horta anigu saan u socday sidaas ay ahayd laakiin anigu marnaba intaan daaqad idin soo wada saar horta uma socon saasa la iigu turjumay saasana la iigu bedelay warku waa halkaas talabaadna anigu waa sheegay inaad adigu aqbashay igu tiri adaa iga mas'uula reer tolkayna idiideen halka markay mareysana caawa waxaan cadeynayay oo kaliya in arintaasi aan ay ii socon weyday oo aan halkaasna kaga baxay waa ka baxay إجمالي أنا صاحبنا عشان تبغى وقت أنا دبي عدي وحلا هذا هاي دارين كدارين ماي إجمالي فايلس هذا الشيء وحي تري وحن دنيا إن حبت جوجون السمايو وحن دنيا إن الله أنا هذا وكيل كان نقضه لايف باصوق الشيء وحن كشيء وكيل ناقته هاي ودي متشو هذا جل هالك كمر مضى مع صهال القادم عن كايريو ويدوبان تاي بودري وكل سهراتك شباب النقال هذا حصلته واحد تري دار عسو أنا كوكيلة أنا كدمينة قفك إني معاه كدمين كايد حلال أي ربع أوكي كاس هذا وتري هل كأمرك أمرك كاسو جاي أنا بقولي أنا بحاول ماشي مثل هذا هو يدارون إلك عصاه وهو عايف الحكومة كابتن أيوب هو عايف الحكومة هذا الشيء أنا وحال عاي حاسكي قال عاي وحال عاي هواي يبقى العاي قبل كنت المهي قبل قال عاي فهمتي والد يقي أنا وحنا كسكول عليا كلمة إن أنا قبل داس أنا عايو أون هواي يعرفت هذه أيضا عاي وحي عن كأن التي في كشكت إن أنا كحد جدو أسكيل عليا شرعيا يعني الصومالي سكيل عليا لكن أمد بقيو وحنكو قرباشا وحي عيد تري تذكر هذا كان يجلب بالدليل هذا قبل دارات وكسود ديدين ليش كل هذا ومع سطحي يا يا واحد الله أرضي إلا لي كيسي إن تصاص على تماشط كيسي ترى هذا إسعافية ناكل اللي هذا منطقنا وعمام صار نحيمه أنا جي إقراني كيسي أسكت دوبني هبيك وحنا كسد حيا أسكت دوبنا هاي ما فهمتي وعمل نبض بالساقات أما أولاد خلاص عطوا وإقال لي حكي كيسي صاص على الداغدة وكو إقرام بعض حقي مالو قدعان والله أنا جيبا لقى بيشيغو نيكي إلك عسي إنك تقويتو صوف وليد قولك خلم يوحو يري أي لو يسو جيبينيان باهي وحو صوت استضي إقل الشو قومي إقلنا والله نبدا أباها فصوع على حري ملي سيقولي أدقي محاكمة سو جوابي سو دي ويسي إلك عسو والحد جدتي بين بعدك الشيكتي أنا داير على السوء إما صودرسا أنا أتري hadalkayga hadaan yeelin oo nabadeeda aad diideen xadgudub bay igu tahay inaad mar labaad igu xadgudubtaan oo been iga sheegtaan waxa uu weys taas waa mid qodka labaad aniga miyaa seed ku soo jira afka ugu soo marsay xaal baan ka qaadi lahaa sidani xaaliga qaadahay arinta maxal bay saxaabad joojin bay ahayd maxal baan ku wada hadalna yani in xabada la joojiyo aan ka wada hadalno tan saddexaad ma horta waxa tiri in عايدة الجوجيو أنا بتعرف روح أقرأ حدا وحاي بس ترى شيء إن الإشياء تقول واحد ساتين أو عاي سان حاله بحيو حدا هنا إن عايد جدو أنا ما قرأته صدق هاسفلان كله هلا يجي جوا صدق رابو ودقلا هذا الشيء لكن ظاهر أو قف دحدحادي مركو قفكو دحدحادي هي أو عمامة سدو هرت النبضين إنه سدو كهلي كرب كهلا أيها هرت الصحة معناه ما فهمتي ma garatay adiga waxaynu ka wada hadalay in arintaasi ay noqoto anigu horta run baan ku sheegay wax kasto aan nabada ku gali karay wallahi billahi tallahi waa ku galay wax kastana waa u maray inay arintaasi afkooda oo dhamaato ma garatay arintan aan leeyahay xaal baan daahir ka qaadayna de walaal wax weeyaan aniga yani taas ana keensadayo maadaama aad adigu nin raga tahay ana ku xukumayo afkayga ka idho kugu xukumay sababtoo waxyaabaha qaar intaan u oranayna waxay ahayd si aan u raadiyo inaan nabad soo dhaweeyo oo go'aan nabadaan horta nabadii waaba la igu diidayba anigu si kastaba aan u dhigo oo aan isku soo dhaweeyo oo aan soo dhaweyn sameeyo oo adiga xataa nin aad tahay oo aanad gabadh aad la mid ahayn oo rag iyo dumar kala tihiin laakiin anigu horta arintan tobanaan wax oo kale oo ka daran baan sameeyo aan uga jeeday in arintaasi aan gogol iyo nabad ay isku soo noqoto ma garatay laakiin adiga taynu ka wada hadalay waxay ahayd xabad joojin
in arrintaasi dhacdo haddii heshiiskaa la qaato oo sida saxda loo qaatana aan arrintaa aan soo afjaro inta rabadaantaa lagu dhex jiro ta kaysaa kuu soo hadhay iyo ta ikraan kayse ta kayse iga gaabay iga gaabay sugya ha okay ta kaysaa kuu soo hadhay ta kayse maadaama aan nabad waday oo aan doonayay in arrinkaas oo dhan la soo afjaro kaysana anaa xukumay anaa ku iri kaysow inantaas maadaama madaxaygaas waxaa ku dhacay kaysow waad xukuman tahay waa inaad gar iyo gardaraba inantaa cimaamada saartaa ma garatay anaa taana xukumay anaa kaysana xukumay tii ikraan baa soo hadhay ikraan xataa anigoo xukumi lahaa oo ikraan ay ii xukumantoo xukumi lahaa ayaa wax kala dhaceen kawde markaa ta kaysana waa taa kaysana anaa xukumay oo ku iri maadaama arrintaas aan soo afjarayo oo bisha rabada aan rabo inaan ka faa'iidaysto oo kiiskaasoo dhan soo jaro daahirna wuu igu yidhi adaa iglanay iga mas-uula adigana waa inaad arrintaa go'a saartaa inantaa go'i saasuu ku saaray taadaa soo hadhay anigu taada haddaan xataa ku daray waxaynan ka wada hadlin ujeeddadayda dhammi waxay tahay inaan ku raadiyo maadaama qof nabad raadinayahay labada dhan isku soo jiidaya ahay inaan dee ku daro oo tii nimana aan dee qabsado waa ka baxay ilay hadda dadka Soomaaliyeed cadaaladda dhigeysanaya qof markuu hadlayo oo qof uu yahay waxaan rabaa inuu cadaalad ka hadlo anigu nin naag ma sheekeeyo waxaan ka hadlayaa cadaalad ilay محمد يهدي كيس وحكي ولا شيء ولا هو على شيء ما فهمتي عدالة أكيس ولا شيء ويسي إلا صار مريا صار يمرقو كيس مرة صار نمعه كيس ولا شيء يهودي هندسي السياسة صار يا إمام كيس أنا حكومي بانكور كيس أنا حكومي عدالة كهلا يا حتى عدالة كهلا يا هو وضع ده هوش كيس هو وضع هوش إنت دلع كلا وضع كيسو كاسورت أنا وحنا كهل دعنا كقرا علي oo anaga wakiil bad naga ahayd wakiil qofka ay heynin aan xukun kari dawlalle ah aniga adigu waxaan ka wada hadalnay wakiiliga yahay xabadoojin isxafin iyo saaligirin iyo isxaasin wakiiliga ma ahayn in xabada la joojiyo oo garbaashka labada dhinac la joojiyo ayaa wakiiliga yahay dhinacayga laakiin ana rabay inaan kiiskaas soo xiro laakiin waa la igu diiday ba taasina ayada lagu diiday dhigasho taasina iyada lagu soo diiday ina caaw hadaan xaal ka raacdo qalad bay kugu heli cadaalad darro saddex oo maxay sameeyeen dee waa lagu soo diiday maxaa keenay ma soo geli kelmadan xaal hadalkii wuu ku dhaafay waxaan ku yidhi arrintii aan galay horta aniga dee daahir adigu imaad soo dirsan nimco iyo faamiligaasina imay soo dirsan tolkay laakiin anaa arrintan isu xilqaamay baa adigu hadalku midhaa kuma galo caaw xageed soo martay dhigasho taasi waa qodobka labaad qodob saddexaad waxaa weeye adiga iyo aniga soo qaadatay Soomaha dhigasho ma qaadan see u qaadan maxaan ku xalaqaad muxuu ku imaanaya kuma micnaha aniga hore u sheekun jeeran ka hadlaaba aniga wax la raadi jirin iyo xaal iyo iscafis haddii malaa'igta ila soo diray adiga ma igu tiri mas'uul baad maxaa ka tahay badan waxa iga tahay xabadoojin waxaad codsataa waxay ma doonayo in la sii garbaasho meelyaha la soo waxeeyo la iscaayo waxaan doonayaa caayda laba dhaxay istaagto waxa igu timid taasay taa kugu imiye taa haddaaban aad iga yeeshay oo aad igu tidhi iglanay adaa iga mas-uula adigu i xukun ma igu tidhi xataa waxa daahiroo samay ma igu tidhi adaa xukumaysid ma waxaad igu xukumaysaa hawl aan hawshii aan kala qaadan shaqada aan ahayn ka baxsan kiiskaasoo dhan baan rabay inaan soo afjaro maya aniga dhegeyso aniga weligay awogeyna ma noqonin addoon anigana addoon noqon ma karo aniga waxaan ahay qof caadi oo biniaadan nool ta saddexaad waxaa weeye haddaan iglan dhinac ka rarnayn markuu ilka case intuu qolka qadar tegey beenta iga sheegay ya uu yidhi iglan buu ku soo calaacalow soo dirsaday maxaa ka soo gasho dhihi weyse ula hadli weyse waa adiga hadda hadlay ilka case arrintaa xaal ka bixi raalligeli ka bixi been baad iga sheegtay intaad igu diiddo wala hadalkaygii maya dee taa in adeerkay anigu eeg wixii aan isnidhi
taa inaad arkay wixii aanu anagu isniri muhiim ah laakiin arintaas in lagu soo diiday kaliya baan sheegay mid kale anigu deelka case iyo nimca jokartoona ma daahir baa igu soo calacalay iyo daahir baa yiri laakiin ina anigu waxaan u sheegay anigu raadiyay oo hawshaas markaan halka live ka soo galayna waa sheegay anigu wixii la duwayo anigu xalayna waan soo waxaan ku yiri qofka haduu wixii aan iraado uu duwayo meel kale u turjumanayo waa arintaas laakiin aniga cid ii soo calacashay hadhow iyo hadeertoona ma jirto ilka casana anigu ma oran daahir baa ii soo calacalay adiguna iimaad soo calacalin nimco iyo maxay tolkayna iima soo calacalin laakiin ana daahir hawshan galay ana rabay inaan kiiska soo afjiro kiiskaasna waa ku fashilmay waa saad sheegtay iminka waa ku soo fashilmay waana dhameyn kari waayay waana la soo diiday arrinkina halkaas ku yahay hayo intaas u dhimaatay markay way waa ma santahay